cibaadada xoojinteedu qalbiga sugnaashiyihiisa keenta. cibaadadu hadday kaa daciifto waad gelgelmaysaa, macaasidaa aakhirka kuu fududaanaysa. idan ama ha noqoto cibaada qalbiya oo alkhawf walrajaa walkhashyatu walrida walikhlaas walmaxaba waltawakul, cibaado qalbiya ha noqoto, ama ha noqoto maxay cibaado caraba oo ilahay dikrigiisa la badiyo. aladiina aamanuu watatmainu quluubuhum bidikri illah, alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub baa ilahay. ilahay xuskiisa waa practical. haddii wardigaagu uu bato degenaanshiyahaaga badanaya, bale dadkan warwarka iyo qalaqu ku dhaco wuu kaa tegaya. warwarka iyo qalaqa badani wuu kaa tegaya hadduu dikrigaagu badan yahay. adigoo soo jeeda haddaad dikriyayso. si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusinin mathlu lxayi walmayit bay la mid yihin buu nebigu leeyay. qof dhintiyo qof nool, qof dhintiyo qof nool faraqa udhexeeya intuu leegi ma isu kombeergarayn kartaa qof dhintay iyo qof nool? wuxuu nebigu ku tilmaamayaa inay isu dhigmaan labadaa tusaale, qofka ilaahay xusa iyo qofka aan xusini, inay sidaasoo kale isku yihiin. si awgeed baa ilahay qur-aanka inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati maxaa layna yidhi fascuu ilaa dikri illahi wadaru lbayt dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun. munaafiqiinta markii la ceebeynaya ilahay muxuu ku tilmaamay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila. haddaynu inagu markaa qaliil xusno maxaynu soo baxaynaa? sifa min sifaati lmunaafiqiin baad yeelanaysa haddii hadday kugu yaraada ilahay xuskiisa. qalbiga waxa nuuriya ee iimaankiisa xoojiya waa ilaahay dikrigiisa oo aada badiso. qur-aan badan badan baana masaladaa ku soo arooray oo tilmaamaya. ilaahayna wuxuu ina leeyahayba ana cinda danni cabdi bi, addoonkayga wuxuu iga malaynayo maanahay. oo dee haddaad ilahay malihiisa wanaagso wa ana macahu idaa dakaranii buu nebigu leeyahy. ilahay baa wuxuu leeyahy addoonkayga ma cibaanay hadduu xuskayga badinayo. hadduu i xuso oo naftiisa iga xuso anna waa xusaya. hadduu goob dad jooga iga xusana goob ka fiican halkuu iga xusay. bini aadamku wuu magac jecelya soo maaha in la sheego dee la yidhaha ninkani waa hebel waa kaasoo waa magac jacayl. ilahi wuxuu leey hataa haddaad magac jeceshay halkan magaceedu naf ma lehe samaawaadka kuwa joogaan uu kuu sheegaynaa baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala. meel halkan ka magac roon ayaa lagaa xusayaa. cibaadaadka ku saabsan weyso, salaad, zako, soon, xaj, jihaad iyo keyrkeedba cibaadaat aljawaarix iyana inaynu badinaa baynu u baahanay si iimaankeenu ugu xoogaysto. waxyaabaha iimaanka xoojiya markaa waxaa ka mid a waxaa alle jecel yahay inaad ka horraysiiso wax naftaadu jeceshay. oo waa kii nebigu tilmaamayay 3 qofka helaa iimaanka macaankiisuu hela, dhadhanka iimaanku hela. qofka ilaahay iyo rasuulkiisu agtiisa lagaga jacayl badaya wixii ka soo hadho dhan. ilahay rasuulkiisa haddaad si dhaba u jeceshahay waxay iyagu jecel yihiinna waad ka jeclaanaysaa waxa kale. iyo qofka ilaahay dartii walaalkiisa kale muslimka u jecel, iyo qofka neceb inuu gaalnimo ku noqdo siduu u neceb yahay inuu dab ku dhaco. waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mid ah inaad ka maqnaanin meelaha khayrka lagu hayo, majaalis dikr. oo saxaabi ka mid a qoladii waxyiga qori jirtay ayaa maalin nabiga u yimi isagoo leh ilaahay rasuulkiisa waan munaafiqoobay buu yidhi. nabigu wuxuu ku yidhi wamaa daak, waa maxay arrinkaa munaafiqnimada kuu keenay muxuu yihi? wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiyo markaanu kula joogno ee aad naar iyo janno ka warranteenna wacdidana waxaad mooddaa inaanu naarta iyo jannada ishaba ku hayno. markaanu kaa tagno ee dumarka iyo carruurta iyo dayacaadkaygu, dayacaadku waa xoolihii wixii uu haystay uu ka shaqaysanayay, xirfadiisii ama xoolihiisii ama shaqadiisii, aanu shaqooyinka gallana wax badan baanu ilownaa. yacni markii aanu kula joognay sidii aanu ilaahay u rumaysnayn ee qalbigayga uu soo jeeday uma soo jeedno markaanu meelahan kala joogno. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku dhaartay haddaa ku sugnaan lahayd ay joogto idiin noqon lahayd marka aniga ila joogtaan sidaa tihiin iyo inay ilaahay xuskiisaasi ku jirtaan mar walba malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy. suuqyada iyo furshaantiina korkooda ayaa malaa'igtu idinku salaami lahayd. laakiin xandalow buu nebigu ku yidhi saaca wa saaca, saacad iyo saacad. saacad iyo saacadna ma saacad la firinbidhaba mise may waxaa la sheegaya saacad iimaanka aad xoog u xoojiso iyo saacad aad danahaaga caadigaa iska qabsatid. marka goobaha diinta lagu haya, goobaha ilaahay la isku xasuusinaya adaa u baahan. ilaahay nabigiisii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u tilmaamayaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaashi waalcashi. nebi maxamed baa la leeyahay fadhiiso oo ku sabir meesha kuwa ilaahay xusaya ay joogaan ee ilaahay wejigii uun doonaya
ولا تعد عيناك عنه إيش هكلا لين با إلهي لي يكو لفظ ضاني dadka ilaahay xusaya meesha joogan yay kula fududaan baa ilaahay leeyahay adigoo turiidu ziinata alxayaati dunya adoo raadcaynaya nolosha bidhbidhkeeda wala tuti hayeelin baa ilaahay yidhaha aqbalin man aghfalnaa qalbahu can dikrina kuwan qalbigooda la madoobeeyey ee ilaahay xuskiisu ka madow yahay ee hawadiisa iska raacay kuwa warkooda ha dhegaysanin idan majaalisu dikr meelaha diinta lagu hayo ilaahay lagu isku xasuusinayo masaajidda saaxiibka wanaagsan waa nabigu wuxuu tilmaamaya qof waliba المرء على دين خليله بنبي تلمام قفكو دينته صاحبكي بو جيرا waxaan leenahay waxa soo dhami waxay sheegayaan in iimaanku xoogsado waqtiga kooban daraadeed waxaan ku soo koobaya hadaynu leeyahay iimaanku wuu koraa waanu naaqusnaa hadaynu rabno iimaanka inaynu taxqiijino waxaynu u baahanay ilaahay inaynu baranno iyo diintiisaba iyo shariicadiisa wanaageeda inaynu baranno kownkan inaynu u fiirsano aayaat alkawniya inaynu si fiican u daraasayno waxa ilaahay nimcayna siiyo sida laynoo buunbuuniyey ee laynoo karaameeyey walaqad karramna bani aadama marka ilaahay leeyahay bilaash maaha inaynu qur-aanka baranno iyo aayaadkiisu waxa ay sheegayaan inaynu cibaadaadkeena iyo dikrigeenna badino inaynu majaalista ilaahay lagu xusayo ka ag dhowaano ugu dambayn macsida iyo meelaheeda inaynu ka fogaano oo macsidu waa wax keenaya in iimaankaagu dib u noqdo oo aad hoos u dhaadhacdo waa wax keenaya maadaama waqtigu iska koobaya waxaan ku gabagabaynayaa haddii uu nabigu ku tilmaamay iimaanku wuu gaboobaa sida maradu dushiina ugu gabowdo ilaahay weydiista buu nabigu yidhi iimaanka inaan laydin cusboonaysiiyo wixii adduunyadiina soo ma ilaalisaan wixii adduunyada ah lacagtaada meel baad ku hubisaa saca maaha jaamacadaadii waxaad dhiganaysa meel baad ku hubisaa diintaadana haddaba ilaasho iyadaa ka qiimo badan inta kaloo dhanay oo wixii aad u aragto inuu diintaada iyo iimaankaaga kobcinayo ha ka tegin wixii aad u aragto inuu waxyeelayo bedel haddaad sidaa ku dadaasho meel baad gaadhi doontaa qantara aan shaki iyo khuraafa iyo warwarku kaa tago waad si fiican diinta kuu biyo dhigto aad u suganto fitanka iyo imtixaanka ilaahay nabigiisii maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waxay u dhowaadeen inay kaa weeciyaan wixii aanu kuu soo waxyoonnay oo aad wax kale nugu been abuurto hadday saasi dhacdana saaxiib ay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leeyahy يعني waxay doonayaan lumitaanka hadaanan anagu ku sugi lahayn baa ilaahay yiri laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila saawgeed hadii ilaahay nabi maxamed saa ka sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka wixii ka sokeeyana waad garan kartaa imtixaanaadka iyo fitanka ku dhaca sida iimaankooda u daciifinayaan ama aanu u xaqiijin karin qofku iimaankiisa ilaahay quraanka gabadh buu ku tilmaamayaa malaa maskaxda wax uga yara dhinaayeen oo carabi ay sheegi jirtay gelinka hore waxbay tidci jirtay tidca ma taqaaneen xarig bay soo hijirto samayn jirtay gelinka hore markay xarigaasi soohdo ama tidicdo ama samayso hadba sabab taqaaniin gelinka dambe way furfuri jirtay marka waa shaqo marna la qabanayo maxay marna dib loo burburinayo marka ilaahay wuxuu leeyahay wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha hanoqonina sidiitii burisay wixii ay soo haysay tolaysay kadib markii ay adkaysay waxa lagu mahmaahayaa ama la tilmaamayo qofka mu'minkii inuu ilaahay rumeeyo acmaal suuban sameeyo haddana wax burinaya uu la yimaado wixii xagga dama ka guro inaad noqoto iska rogo xaggana ka lagaga guro hadhowna iska qalibta saawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa iimaanka qofka mu'minkii inuu duugoobo gaboobo uu u baahan yahay in la tajdiidiyo oo la cusboonaysiiyo bal waxyaabaha qofka iimaankiisa ama camalkiisa burinaya ama riyaa istusan noqdo ama sumca ismaqashiin ha noqdo ama macaasi iyo kabaa'ir dunuub waaweyn oo gala ha noqdo ama kuwa iimaankaba buriya nifaaq iyo riddo ku dhaca ha noqdo waxaasoo dhan marka la isku daraa waa wax ka soo horjeeda iimaanka xoogayntiisa waqtigan dambana wuxuu nabigu tilmaamayaa inay iman doonaan dad yusbixu rajulu mu'minan ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا ابو نبي لي
حديث كمسلم كيالا نبا وابريسان دونا يسقو مؤمنة هدنا قلبيسان دونا يسقو قالة هدنا وابريسان دونا يسقو قالة هدنا قلبيسان دونا يسقو مؤمنة حيكون عيسى يبيع دينه بعرض من الدنيا بنبوليه دينتي سي وحو سيسانيا وحوغا يرى الدنيا كميدا الدون كودا ما وحير marka iimaan loo eego sawgeed waxaan leenahay waxaan u baahanay iimaankeena sidii loo xoojin lahayn quraanka ilaahay qaar buu ku tilmaamay ilaahay aayaadkiisa wax ka baray oo dabeetana tuuray watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghawiin waxaad akhridaaba ilaahay yidhi oo dadka u sheegtaa warkii ninkii ilaahay aayaadkiisa wax ka siiyey ee dabeetana ka siibtay ee shaydaan raacay baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba iimaanku markaa rumaynta inuu ilaahay rumaysanayo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiriya qiyaamaha iyo qadaaga iyo qadarka iyo rususha iyo kutubta iimaankaasi darajaad buu leeyahay iimaanku marka la isku soo duuduubo caqiidiya camalba darajuu leeyaho qaybi waa waajib oo haddaad ka tagto iimaankaagii dhaawac weyn baa gaadhaya haddaanu burinba qaybina waa mustaxab oo waa wax lagu xoojiyo iimaanka inaad gaalnimada iyo shirki iyo shirkul akbar iyo shirkul asqar iyo wixii la halmaalo dhan inaad ka tagtaa waa kow bidca iyo waxa la nooca inaad ka tagtaa waa laba macaasida iyo waxa la mid inaad ka tagtaa waa saddex saddexdaasi baa kugu waajib inaad la timaado waxa sunnayaasha ah وما أعمال القلوب كم من نقضان أما أعمال الجوارح كم من نقضان واحد بدنا نص نياله بشرة هذا بوحة كسوكو بيالي